wiilkan oo lagu magacaabo qafiifo ayaa wuxuu galay imtixaanka ugu adag ee iskuulkooda. macallimada tufaaxa ayaa soo qaadanaysa oo miiska soo saaraysa kaliya 3 jab haddii ay ka goosato imtixaankaasi waa uu dhamaaday. qafiifo imtixaanka aad iyo aad ayuu adiga waxa uu sameynaya ma yaqaan, laakiin uu isku day far badan uu sameynaya. markaan waxaa la gaaray markuu imtixaanka dhammaan lahaa, dhammaan ardayda kale waxay sameeyaan ma yaqaan. qafiifo waxa uu sameeyaa ma yaqaan, markaas waraaqada laga qaadaa kadibna waa la saxayaa. kaasi dhammaan ardayda kale soo baxaan, balse qafiifo waa fadhiya sababtoo uu naxsan yahay. isagoona soo socda wuxuu arkay gabadhan oo ka dhacaya qalinka weliba ugu dhacaya boosaneerka. markaasi ay gabadhii saaxiibadeedu way ka cararaysaa, balse isaga ayaa imaanaya weliba isagoo qalinkiisa jabka siinaya, sidaasna uu ka caawinaya gabadhani weliba isagoo qalinkiisa jabka siinaya. markaasi ay gabadha la yaabeysaa, balse wuxuu dhahay qalinkan iska qaad, aniga ayaa ku sii. kadib ay soo galeen imtixaankooda mayna fadhiisanaya. mar kale miskiinkii qafiifo ma yaqaan imtixaanka meeshuu ka bilaabay, iska fadhiya sidoo kale ku dul fakiraya. mid kamid ah ardayda uu soo cararay weliba isagoo yaab. adigana daawadaha ilaahay muuqaalkana like noo saarto, balse qafiifo hortiisa waxa fadhida gabadhii ayadana istaagaysa meesha in warqad uu soo tuuraysa weliba iyadoo sidaas ku caawinaysa. qafiifo jawaabaha oo kaliya ayuu dhinaca marmarsanaya, kadib warqad uu iska tuuraya. wuxuuna isla markaasiba ka shaqaysanaya imtixaankiisa weliba isagoo ku dadaalaya. markaan qafiifo caawinad oo gabadha aabi ma uusan ku qasaarin imtixaankiisa sababtoo sida uu shaqaysan lahayo ku helay. wuxuuna ka shaqaysanaya dhammaan imtixaanaadkiisa weliba ayagoo ardayda oo idin la yaabaya qafiifo sababtoo markooda hore waxay ku yaqinayeen inuu yahay isaga caajislo. kadib ay ardayda la soo waday ayagoo tijaabo kale qaadaan, waxaan la soo gelinayaa qolkan qof walba aan la irbaabkaas ha furo. marka ugu horeeyna gabadha ayaa soo galaysa weliba iyadoo ku dhaxadlaysa. markaas ayaa meesha ka soo muuqana xariif odaya, kadibna gabadha ay baqaysa isla markiiba ay soo cararaysa. arday kale ayaa meesha soo galaya weliba isagoo sameynaya waxyaabo cajiib ah. xiriga ayuu meeshaas ku xiranaya weliba isagoo ku dul soconaya. isagana sidoo kale waxba uma hagaagaya. mar kale midka ayaa soo galaya weliba isagoo meesha ku boodboodaya sidii daanyartii oo kale. sidoo kale ilbaabku uu furuwaynaya. haddana wiilkan ayaa soo galaya weliba isagoo isku dayaya inuu ku socdo gacmaha sida xayawaanada kale oo kale. mar kale isagana waxba uma hagaagaya ilaa ugu dambeyn uu meesha soo galo qafiifo. markaasuu dhinaca fiirfiirinaya, isla markiiba uu fahmaya waxa laga rabo meesha inuu ku dhex soconaya weliba isagoo xaragoonaya. albaab kale ayuuna furaya. markaas wiilkan wuxuu weydiinaya, laakiin adiga sidaad ku samaysay midaas uu sheegaya kaliya inay tahay sharci taasi oo ah isagoona ku dhahay qaab isku weeraha oo soconin sababtoo baashu ay dheerta. markaas wuxuu ku dhahay inaad u socotaa qaab rectangle ah ilaa aad kaga istaagayso calaamada rectangle-ka ee kuu muuqato. wuxuuna ku dhahay aniga sidaas ayaan ku guulaystay.